daawadayaal shabakada wararka ee Ramas News waxa marti u ah Liibaan Xuseen Calas. Liibaan wuxuu ka tirsan yahay hay'adda ama wuxuu ka shaqeeyaa hay'adda badbaadada carruurta ee dalka Norway. afka Norwegian lagu yiraahdo Barnevanka. waa la taliyo qoys dhinaca Soomaaliga ku eegno ujeedo halkan waraysi baan ku qaadaynaa. waraysigaas waxa weeyaan aqoon shaqada hay'addan iyo waxay qabato iyo in bal qoysaska Soomaaliyeed maadaama waraysiga afka Soomaaliga ku baxayo in qoysaska Soomaaliyeed ay ka helaan xog inta imka ka hayaan ka badan intii la gaari karo iyo iyadoo oo aqoon darro badan iyo baqdin badan ay hay'adda iyo waalidiinta carruurta leh siday doonaan ba carruurta xaaladda ay doonaan ba ku jirtay ay timaado. marka ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Liibaan shabakada wararka ee Ramas News. ma santahay bismillaahir rahmaanir rahiim. waad ku mahadsantahay inaad isoo abarto oo aad na weydiisataan wixii aanu aqoon soo daarsi iyo talo bixinba aanu ka dhiiban karno. adiga mudan Liibaan ugu horeyn wal hay'addan maadaama aad shaqaalaha ka tahay oo aad ka tahay hawlwadeen ka mid ah aqoonyahan jaamacad uga soo baxay xagga barbaarinta iyana aad tahay hay'addan iyo xilligii la asaasay shaqadeeda iyo qaybaha ka kooban tahay ugu horeyn bal noo iftiimi. hay'addan badbaadada carruurta oo Norwegian lagu yiraahdo Barnevernstjeneste Englishkana lagu yiraahdo Child Protection Services. waa hay'ad ka mid ah sida waddanku siyaasaddiisu ay ku dhisan tahay oo ah social policy waddan leh. waxaa sharcigeeda ugu horreeyay la asaasay si sharciyan ah 1952 dagaalkii labaad adduunka markii laga soo laabtay. waxay ahayd fikrad ka horreysay dagaalkii labaad adduunka, laakiin dagaalkii labaad adduunka uu hakad geliyay oo guddigii u fadhiyay inay meel mariyaan ay noqotay inay sugaan ilaa dagaalka ugu dhamaado. way jirtaa way ku horreysay oo way lahaan jirtay badbaado carruurta Norway ka hor, laakiin si dawliyana uma badnayn. waxay ahayd si gobol ay u lahaadaan oo san ku ognahay taariikhda hay'adda tani 1680 kii hadda ma hubo markay ahayd sidii iskoolka lagu dhigay. waxay lahaayeen hay'addii ugu horreysay oo adduunyada meel carruurta lagu xanaaneeyo samaysa bay lahayd magaalada Trondheim la yiraahdo. sida buugaagtana loo ku dhigo iyada ugu horreysay baa naloo dhigay, laakiin anigu hadda ma oran karo ma xoojin karo iyada cid kale adduunyada kale way ka horreysay ma oran karo, laakiin sida naloo dhigay waxay ahayd inay ahayd wadankii ugu horreeyay oo carruurta xanaanadeeda u istaaga. shaqooyinka marka ay qabato iyo qaybaha ka kooban tahay hay'addan hay'addu waxay ka kooban tahay sida caadiga waa hal qayb oo waxay qaabilsan tahay sharciga carruurta. carruur marka la leeyahay waxaa laga wadaa ilaa markay dhashaan ilaa intii ka gaarayaan 18 sano sida xuquuqda waddanka sharciga waddanku u dhigayo. qofku waa carruur ilaa uu 18 sano uu ka gaarayo. waxaa kaloo jira ilaa 18 sano ilaa 23 sano intuu ka gaarayo wali inuu xaq u leeyahay in hay'adda badbaadada carruurtu ay caawiso. waxaase xoogga weynu saaran yahay iyo awoodda badani ilaa intay 18 sano ka yihiin baanu awoodda buuxda leenahay. marka u dhaxaysa 18 ilaa 23 qofkaas baa iska leh doorashada inuu doonayo la caawiyo. su-aasheeda labaad waxqabadka iyo dariiqyada u marto iyadu waa qaabkeedu. waxqabadkeedu waa wax fudud. waa wax fudud oo ku salaysan inay wax ka qabato kaliya carruurta u baahan caawimaad. carruurta Norwegian lagu yiraahdo utsatta barn, carruurta macnaha dayacan ama ay marxalad adag haysato inay caawiso bay u leeyihiin awood oo ku qasban yihiin inay sameeyaan. marka dariiqada loo maraa waxa weeye marka ugu horeysa inay hay'adda badbaadada carruurtu ay xog hesho inuu jiro cunug wiil ama gabar u dhaxeeya
dhalashadiisa 0 ilaa uu ka gaaro 18 sano oo marxalad ku jira u baahan in wax laga qabto xogtu waxay ka imaan kartaa cunuga laftigiisa waxay ka imaan kartaa waalidka dhalay waxay ka imaan kartaa iskool hadduu dhigto haddii uu dhigto xanaanada caruurta haddii uu daris jiro xogtaas oo doonaya inuu mataqaanaa gudbiyo waa sharci ka mid ah waddanka sharciyadiisa in qof walaala iyo qofkii ilma dhibaataysan oo marxalad adag ku jira og in uu ku xaq macnaha uu ku qasban tahay inuu gudbiyo hay-addu waxay samaysaa jaranjarooyin wax qabad oo qofka marka loo soo sheego ilmihii iyo familigii ay marto qaabkeebay markaa u wajahdaa haddii imika la yidhaahdo ilmaha halkaa ku dhiban ama reerkaa so waxa weeye carruurtay hayaan way dayacan yihiin qaababkeebay u martaa wax fiican inaad jaranjaro magacowday jaranjaraduna saan ognahay waxay ka bilaabataa salaan hoosaa jira oo salaan ku xigaa jira salaan ugu sarreeyana waa jira salaanka ugu hooseeya oo ay hay-addu martaa inta badan waxaa weeye in ay markii ay xog hesho ay degdeg ku gaarto go-aan ah oo go-aankaasina uu ku salaysan yahay sharciga waddanka Parliamentarian oo ka mid ah waddanka constitutionka Norway qayb ka mid ah in ay week gudihiis ay xal ku gaarto inay xogtaas ay baarto iyo in kale haddii ay noqoto inay baarto waa inay muddo 3 bilood gudahood ah ku baaraan oo jaranjarta meesha ugu hooseysa baaritaanku micnaheedu waxa weeye in ay xogta la soo siiyay ay address gareeyaan haddii xogtu ay ku saabsanayd ilmaha dhibaato haysataa ama xagga iskoolkay ka haysataa ama xagga waalidkiisa ka haysataa ama xagga waalidka dhibaato ayaga kala haysata weeye xogta ay ku xiran tahay ilmahaas la soo siiyay jaranjarta ugu hooseysa marka baaritaanka ahi oo intershocul saan nidhaahno waxa weeye in lala xiriiro waalidkii in lala xiriiro ilmihii dhibaatadu laga soo sheegay in aynu address gareyno ilmaha iyo waalidkaba si direct ah cid u diidi kartaa oo ka xanibi kartaana ma jirto ilmaha ilaa intay Norway joogaan ilaan qodob adag oo sharciya weeye xuquuqda macnaha sharciyada waddanka yaala ka mid ah baaritaankaasi markuu ka bilowdo in cunugii lala kulmo waalidkii lala kulmo waxa xog laga raadsadaa haddana hadday jirto hay-adaha waddanku kale oo ka tirsan yahay meel ilmuhu ay xiriir la leeyihiin sida xanaanada caruurta iskool dhakhtarka reerka booliiska waddanka waa badan tahay hadba macnaha waxay ku xiran tahay ilmahaasi xiriirada uu leeyahay iyo waalidka xiriirada uu leeyahay iyo da'da uu jiro iyo caqliyan meesha uu marayo inta badan waxaynu maqalnaa reer baa carruur laga qaaday laakiin wixii ka horreeyay inta badan bulshada ma ogaato baqdin baa markaa jirta maxaa kalifa baqdintan cabashooyinka waalidka carruurta dhalay ma aqoon la-aan dhanka sharciga ah oo ay leeyihiinba se banfanka awoodii ay lahaayeen awood ka badan isticmaalaan waa jirtaa in baqdin ay waalidka ay hayso waana la kulanaa waalid baqaya oo maqla kaliya hay-adda badbaadada carruurta ay qaadaa wayna haddii ay de information noocaas ay haystaan way ku saxsan yihiin inay baqaan oo dadku inay carruurtooda u baqaani waynu fahmi karnaa bini'aadanku waalidku carruurtooda waa carruurtiisa macnaha waa jecel yahay inaan laga qaadin buu macnaha intooda badan jecel yahay laakiin hay-adda carruurtu saad tiriba jaranjaro ka magacowdayba jaranjarada waxaa ugu sarreeya salaanka ugu sarreeya waa qaadid laakiin waxaa ka hooseeya salaanna hoosaa jira oo aan la isku dayo in marxaladda jirta wax laga bedelo oo waalidka haysata ama carruurta haysata haddii marxaladaha jira ay yihiin marxaladan waxba laga bedeli karinin bay imaan kartaa in carruurta laga qaado meeshaas iyadoo markaasi hay-adda carruurtu ay adeegsanayso iyadoo fikraddeedu ay tahay ilmaha bay badbaadinaysaa sababtoo ah ilmo gurigooda laga qaadayaa waa guri loo arkayo inuusan badbaado u ahayn ilmaha oo tiirarka ugu horeeya oo ay isticmaalo shaqadeeda iyo cilmiga iyaguba waxa weeye inaan wax walba ku address garayno waxa carruurta u fiican banas beste waxa la yiraahdo iyadoo laga eegayo xag cilmiyana xag sharciyana iyo xag mataqaanaa khuseeya cunugaas asaga laftiisa taasna waa wax inta badan individual ah oo cunugaas la address garaynayo waxa asaga u fiican ma aha wax ilmaha kale oo dhan u fiican
taasna dee waxay keentaa markaanu baaritaan samayno oo kulano aan cunugii barano iyo feelingkiisa iyo dareenkiisa iyo sida wax u hayaan inaanu ku address gareyno haddii ilmo laga qaadayo waaridkiina oo aysan hayn waarid wax laga bedeli karo gurigiina uusan hayn guri wax laga bedeli karo in markaas aanu la nimaano fikrad ah ilmuhu wuxuu ku fiican yahay in laga bedelo guriga uu ku nool yahay. xaaladaha qaar ayaa waxaan maqlaa reer baa degdeg lagu soo duuleeyo baanfanku ama carruurtii iskuulka tagtay baa guriga dib ugu soo noqon ama guriga oo waalidka ka maqan baa loo yimi waa laga qaaday taasoo kale shock bay noqotaa marka waxaa degdega noqon kara ee mar keliya in la qaadan keenaysa ama xaaladaha degdega keeni kara in markiiba waxa weeye reer guriga laga badbaadiya carruurta maxaa ka mid ah sida generalka haddaan u hadlo oo khibradeydu ay tahay waxaa weeye haddii degdeg uu ilmo looga qaado guri waa iyadoo akhbaarta timid bashiimar ismaaling waxa la yidhaahdo uu ahaa akhbaar oranaya khatar weyn baa ilmaha haysata ama iskool aaday ama baanahaaga tegay meelaha carruurta lagu xanaaneeyo oo yiri ama sheegay ama dad kale ay xog ogaal noqdeen in ilmahaasi guriga dhibaato ku haysato dhibaatooyinka haysan karaa waxaa weeye waaridkii oo ilmihii dilay ilmihii oo yiri waa lay dilaa oo baqdin sheegtay waana lay dilayaa macnaha maaha mid shalay baan TV-ga cabaar daawaday oo waa lay canaantay maahana waa lay dilay macnaha wadankan in carruurta la dilaa waa ka mamnuuc waa sharci jabay weeye macnaha oo lagu gudbay xorriyadooda loo gudbay iyadoo ilmihii si sexual misbruka waxa la yiraahdo waaridku dadka qaarkiis ay ilmaha ku sameeyaan anu ma lihi Soomaalida samaysa ama cid kale gooni u samaysa laakiin way dhacdaa adduunyada way ka dhacdaa marka waxyaalo badan ama waaridkii waxa xanuunsan si maskaxiyan waxa xanuunsan ama isticmaala mukhadaraad waxa soo dhanna waxaan ognahay mukhadaraadka iyo xanuunka maskaxiyankuba inuu carruurta u daran yahay oo dhibaato u geysan karo waaridka ama madaxa ka xanuunsan oo dhibaato u geysan kara ama haddii ay mukhadaraad isticmaalaan oo inta ay mukhadaraad ku jirkooda ku jiro ay ilmaha dhibaato u geysan karaan oo aysan dee xanaanadoodii aysan kabi karinin waxyaalahaas waxay keeni karaan in ilmihii si ku meel gaar ah guriga looga kaxeeyo loo geeyo meel kale ilaa inta la baarayo dhibaatada jirta waxay tahay oo la ogaanayo dhibaatada lasoo sheegay inay run tahay iyo inaysan run ahayn hadday run tahay in wax laga qaban karo oo waaridkii isbedeli karo hadduu xanuunsanaa uu daawoobi karo haddii uu muqadaraad isticmaalayay uu joojin karo oo caddayn karo inuu joojiyey haddii uu dili jiray uu joojin kara dilka oo uu doonayo inuu ilmihiisa mataqaanaa uu garto inuu u gafay waxyaalahaasa keeni kara in ilmaha guriga degdeg looga qaado laakiin qaadidaasi maaha waaridkii lagala wareegay waaridnimadooda waxaa lagala wareegay xanaanadooda wadanka sharciyadiisa waxaa kala ah waaridku sharci buu leeyahay xuquuq buu leeyahay waaridnimo xuquuqda waaridnimada waxaa soo raaca mas-uuliyad ah in uu waaridnimadiisa ka soo baxo waaridnimada wax loo dhasho maaha waaridku waxa weeye waarid wuxuu yahay marka uu ilmihiisa xanaanayn karo oo xanaanadeeda oo haysto uu ka adag yahay waa saas haddii ay dhacdo oo kale inay duruufaha ilmaha lagu qaatay oo kale haddii ama ay helaan fariin khaldan ay helaan oo kale oo siday waxu jiraan wax ka duwan ama ilmaha oo kale isaga laftiisu uu asxaabtiisa oo kale intuu la sheekaysto inuu xaalad kale ama wax rabitaan kale uu leeyahay uu ku dabaqo oo kale xaaladaha qaladka oo kale haddii lagu qaato oo kale maxaa lagu xallin karayaa xafiisku si isaga ay u timi fariintaasu deetana isaguna markiiba u action qaatay ilaa intay in leeg bay qaadan karaysaa xaaladda eegidda bal in wixii lagu soo qaaday inay yihiin sida yihiin iyo wixii laga qaban karo waxaan u fahmay su'aashaada haddii fartiinta warbixinta soo gaartay hay-addu badbaadada carruurtu ay qaldan tahay see lagu xallin karaa saan qiyaasayaba aad ogtahay idinkuba aad ogtahay adiguba qalad waa dhacaa biniaadanku qalad waa sameeyaa dadka baanabaanka u shaqeeyaana waa biniaadan laakiin waxaad xisaabta lagu darayaa warbixinta qaldan oo soo timid mid baanabaanku ama hay-adda carruurtu iyadu ay soo qortay maaha waa warbixin noo keenay ama ilmaha ka timid ama cid kale ka timid sharcigii wadankiina sharci baa ka jira oo warbixin kasta oo soo gaarta baanabaanka oo ilma dhibaato haysata ku saabsan waxay ku qasban tahay inay baarto
hay-adan waxaan ku qasbannahay inaan baarno ama sax ahaato ama sax aysan ahaanin bal inaan baarno oon kabacdi ka ogaano ilaan marka ugu horeysa inay sax tahay ma ogin iyo inay qalad tahay ma ogin waxaan ugu qiyaasaynaa mar walba oo dhibaato laga soo sheego ilmo in ay dhibaatadaasi jirto waxaana mas'uuliyadeedu tahay inaanu ka saarno ilmaha dhibaatadaasi ay ku jiraan marka waxaa loo baahan yahay in waalidkii laga soo sheegay dhibtaasi uu hufnaan la yimaado iyo isagoo cadaynaya sheegaya si wax u kala jiraan isagoon markaas dib cusub bilaabinin oo ilmihiiba been sheegay iyo ilmihiiba aan lagu furinin dhibaato kale oo aan markii hore meesha olin laakiin uu asagu suu waaridnimadiisu tahay waxa uu sameeyo waxa uu samayn karinin waxa uu jecel yahay waxa uu warbixinta waxa la weydiinayo oo si hufan uga jawaabo waji furnaana macnaha qof bilaadanimo ah waji furan dadka oo la yimaado taasi waxay keenaysaa wixii si degdeg ah hadii qalad jiray aanu ku ogaan karno meeshu qaladku ka jiro haddii dhibaatadu ay tahay ilmihii qaladka warbixinta la soo sheegay daraadeed baa ilmihii guriga looga qaaday haddii guriga way ku soo laabanayaan haddii hadhowto macnaha la ogaado si ay wax u jiraan inaysan wax u jirinin macnaha sida ay wax ku bilowdeen iyo sida inaysan markaanu bil marayno aysan arrintu ahayn meeshaas marka waalidku waa in ogaada xuquuq buu leeyahay qaadida caruurtana mid baana waan ka kaliya ay go'aan ka gaarta ma aha hay'adda caruurta waxaa go'aanka iskale maxkamad baa iskale filkis namdaha la yiraahdo oo la sameeyay 1992 waa maxkamad ka madax bannaan hay'adda badbaadada caruurta oo dhexdhexaadiye u ah waalidka caruurta iyo hay'adda badbaadada caruurta hay'adda badbaadada caruurta waxay la imaan kartaa ayaga fikradooda iyo go'aankooda waxaa la doonayaa waalidka iyo lawyerka la siyaaba ayaguna waxay la yimaadaan fikradooda iyo go'aankooda labadaas bay markaas go'aamiyaan maxkamadana gaartaa in waalid caruur laga qaado baan kuma gaaro caruurta haddii waalid laga qaado caruur ama caruur haddii la yiraahdo gurigaas uma roona bulshooyinku way kala dhaqan duwan yihiin way kala diin duwan yihiin waxa weeye habnololeedkoodu wuu kala duwan yahay qaabkeebaa hay-addan caruurta ku qiimaysaa halkii caruurta ilmaha ay geynayso ma waalidkii bannaanee yidhaahdo waan xanaaneyn karayna ba u dhigtaan mise xaaladahan caruurta ay familigan ay kusoo koreen dhaqanka diimaha miyaad tixgelisaan ya su-aashaada midda ugu dambeysay oo ah ma tixgelisaan dhaqanka waalidiinta diimaha kala duwan iyo dhaqamada kala duwan iyo qaababka kala duwan ha waanu tixgelinaa ilaa intii ay la tixgelin karo saan ku yiraahdaa la soco ilaa intii la tixgelin karo waxaan ka wadaa waxaynu joognaa wadan la yiraahdo Norway oo leh dhaqan iyo qaab ay bulshadu u nooshahay sharcigan ka hadlaynaana waa sharci Norway ay leedahay oo lahaan jirtay intaan bulshooyinka intooda badan aysan imaan hay'adda caruurta dadka u shaqeeyaa waa dad cilmi leh cilmiga leeyihiin waxaa kamid ah cilmiyada bulshada la yiraahdo anthropology-ga waxaa kamid ah sociology-ga waxaa kamid ah psychology-ga oo bini'aadamka ku saabsan ilaa intii cilmiyan adduunyada hadda la hayo la ogyahay siyaas laaligeed dadkaas waa dad aqoon u leeyahay dunyadu inay kala duwan tahay dadkuna kala duwan yahay xataa Norwijigu laftigiisu uusan isku si ahayn isagoo dhan uu kala duwan yahay guri kasta guriga kale ka duwan yahay laakiin markaanu caruur ka hadlayno sababaha caruurta lagu qaadaa intooda badani ma aha because caruurtaasi dhaqankooda ka duwan laakiin Norwijiga waxa ilmo guri looga wareejiyaa sababtoo ah guriga ilmahaasi ku nool yahay ilmahaani kuma noolaan karo sababtoo ah waxa taala dhibaato ama marxalad ilmahaasi u gooniya asaga haysata oo ilmahaas u haysan sababtoo ah ilmahaasi Soomaaliya ka yimid ama Hindiya ka yimid ama Pakistan buu ka yimid ama wadamo kale ka yimid laakiin marka ilmahaasi maxkamadda tiraahdo ibaanabanki ka yeesho hay'adii badbaadada caruurta taladiinu way wanaagsan tahay ilmahaasi guriga ama joogi karo oo geeya foster yam waxa la yiraahdo foster parent waxay hay'addu markaasi raadisaa oo la xiriirtaa markiiba wadankii wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan oo xafiis kasta wax qaabilsan yahay xafiis kale noo qaabilsan oo noo keena foster care qaabilsan inuu foster haysto xafiiskaasi marka waxaa dhici karta inuu noo sheego si u badan tahay reer Norway oo diyaar u ah ilmahaas inay hayaan haddii ay jiri lahaayeen
for example haddii ilmahaasi uu yahay Soomaali xafiiskaasina uu haysan lahaa reer badan dhowr reer oo Soomaaliya oo ugu jira ayaga mataqaanaa faylkooda ama tirada liiska tirada dadka haystaan way fiicnaan lahayd laakiin nasiib xumo ma badna dad badan oo Soomaaliya oo is diiwaan geliyay inay noqdaan foster parent taadan ugu dambeysay haddaan sii raaco su-aashaadan ugu dambeysay waxa la jawaabtaadan ugu dambeysay qoysas badan oo Soomaaliyeed baa degan halkan waa dhexe waxaan maqlayay ilaa 1,000 caruura inta qoysaskii Soomaaliyeed caruurtan dhalay laga wareejiyay oo la yiri ma hayn karaan idinku in laga qaaday arrintaas warwar badan bay dadka Soomaaliyeed gelisay qax bay gelisay in ilmihii oo iskuul dhigta oo xaalad caadi ah ku jira in waalidkii mar allaale marka waxa weeye digniino badan u yimaadaan dabeetana uu cararo dariiq kale oo lagu wajihi kara taas dadkii haddii baqdani hay'adii oo caruurtii badbaadinaysa iyo reerkii wax loo badbaadinayay adiga oo wax badbaadinaya haddii haddana laga baqayo oo qofkii uu gaarayo inuu xidada goosto ilaa iyo caruurta mustaqbalkoodii iyo digitaanka meesha uu deganaa uu ku cararo حتى لو واحد كرا بقول أركتها ما دام أعطيها قويها كل احترام أحيانا بدنا كسر احترام واحد عرب بوضي إن حفيز كان ضدك عروض كورية أما فوستر كونتوركا أما أتسيادي سيالا إن ده بالشوين كلا دونا عد ولا باي وسوق بيسو الصومالي دويري بالشو أما خيارو كورين كرايا عد أما عد كوريسا ويمجران با أما ويريهم حو خيركو محا شروطو كحران علمو خيركي لها كورين كرواي هلكي عد كلا لو جين لها إن عد أي سوء فيهين لو جين هدي أي صوبح لها خير دوني إن حنانيا طريق مريان إيه شروطها لو جبهي وانا shuruudaha waxa weeye inay qof walba oo Norway jooga horta wuxuu degan yahay ama magaalo degmo ama wuxuu degan yahay caasimad oo kale caasimaduna waxay ka kooban tahay 15 degmo marka qof walba oo diyaar u ah arintaasi waa inuu la xiriiraa degmada uu degan yahay degmo kasta oo Norway kamid ahna commune waxa la yiraahdo waxay leedahay barnevernstjeneste Oslo waxay leedahay 15 barnevernstjeneste maadaama ay 15 degmo ka kooban tahay Oslo marka 15 degmo waxaa jira xafiis guud oo 15 degmo barneverntkooda mas'uulka ah oo la yiraahdo hay'ad oo kala oran kara af Soomaali inuu sax yahay ma hubo etat waxa weeye barna oo familia etat waa hay'adda caruurta iyo waalidka oo ka koraysa markaas barnevernstjenesta hay'adda badbaadada caruurta taasa marka buu qofku iska diiwaan gelin karaa maanta 2012 oo adduunku informationkiisu xataa internet iyo mataqaana guri walba uu yaalo waa easy qofku inuu tagalo barnevernstjeneste ka bacdi wuxuu ogaanayaa shuruudaha lagu baahan yahay inuu noqdo foster parentigu shuruudaha anigu hadda aan kor ka sheegi karo anigu waan ahaan jirnay aniga xaaskaygu waan ahaan jirnay caruur Soomaali gurigayaga waxa weeye qofku inuu qof mas'uul yahay Norway uu degan yahay sharci xuquuqa uu leeyahay oo kala yaqaano matqaana bulshada wadanka say tahay marka ku xigana uu hada qof mas'uul uu yahay oo caruur mas'uul ka qaadi kara mas'uuliyadaas ay tahay xanaanadiisii kobcintiisii iskoolkiisii uu mas'uuliyada qaadi karo waxa uu si dheer qofkii inuu haysto hadda boos uu ilmihii la dago gurigiisa boos ka banaan yahay qol uu ilmihii dagi karo uu haysto waa intaas qofkii inuusan lahayn wax dambi ah oo wadanka caruur ka galay ama dambiyo adag oo keeni kara inuusan caruur mas'uul ka uusan ka lahayn uusan ka ahaanin inay jirto sida inuusan mukhadaraad waaweyn uusan gadinin uusan madaxa ka xanuunsanayn uusan dadilinin uusan dhaawac geysanin waxyaalahaas oo kale waxaasna waxa laga raadiyaa booliiska hadhowto qofka siiya warqad caddayn ah qofku inuu yahay qof dambiile la'aan ah حمرك هيركن الماهية محوك فايدة wuxuu ka faa'iidayaa faa'iidada laga helaa markaad bilaadan caawisid waxa weeye mid ah inaad heshid inagu muslim markaynu nahay waxaynu dhahnaa ajar Norwegian waxa lagu yiraahdaa conscience-ka qofka self-lid-ka qofka iyo baa fiicnaanaya
ilaan waxaad caawisay bilaadan yar oo u baahan in la caawiyo inagu muslim waxaynu isticmaalnaa ajarka ilaahay baa taa kula dhaqaalay ma jirtaa way jirtaa taa kula dhaqaale oo ah ilmihii lala kabayo wixii ku baxaya kharashkiisa ma aha mid mushahar ahaan dadkii inay mushahar ku heliyaan oo ay guriga fariisanayaan waxba aysan qabanaynin dadkii waxaa la doonayaa inay danahooda qabsanayaan haddii jaamacad dhiganayaan haddii ay shaqaysanayaan sida ay markay haddii waarid yihiin baa ilmahooda dee lacag gooniyo ku siinaysa aysan jirinin laakiin ilmahan dawladdu ku dhibatay waa lagula kabayaa oo way jirtaa wax la yiraahdo kharashka ku baxa daruuriga ah waa lagula kabayaa waxaan soo wadnay hay'adda badbaadada carruurta dhinaceedii adkaa bal haddaynu usoo gudubno dhinaceeda wax qabad maxay u qabataa bulshada wax tara oo dhinacii kale ahaa hadday noqoto reerihii noqoto hadday ilmihii noqoto maxaa caawimo ah oo ay u geysataa oo aan ahayn qaadmadaasun laakiin maxaa caawimo ay u geysataa oo dhinaca wanaagsan su'aal aad u fiican weeye waana mid macnaha ugu fiican dadka ugu muhiimsan ba inaanu haddaan gudbin karna aan gudbino u sheegno dadka hay'adda badbaadada carruurta caawimooyinka ugu badan ay bixiso waxaa ka mid ah caawimooyinka carruurtu intay gurigooda joogaan lagu kabo waalidka inay gurigooda deganaadaan oo waalidkood la joogaan waxaa lagu kabaa haddii waalidku dhaqaalihiisu xun yahay oo ilmuhuna yaryar yihiin oo ay doonayaan in xanaanada carruurta loo geeyo oo laga bixiyo kharashka xanaanada carruurta waxaa la ogyahay xanaanada carruurta ilmuhu inay ka bartaan iska dhexgalka bini'aadanka inay ka bartaan luqadda inay ka bartaan jirka ahaan wixii mataqaanaa kobcintooda intaysan iskoolka aysan gaarinin inay kusii barbaaraan oo iyagoo iskoolka diyaar u ah ay iskoolka bilaabaan taas waa laga kabaa hay'adda badbaadada carruurta waa ka kabtaa waalidka iyo carruurtaba waxaa jirta in carruurta mid loo kabi karo haddii uu doonayo waxyaalo asaga u khaasa waxyaalo activity-ga la yiraahdo lagu dhiirageliyo oo loo raadiyo mid uu doonayo oo xiseynayo ilmahaasi inuu dhigto ama ka qayb galo ama sporti ha ahaato oo noocyo badan ama waxyaalaha kultuurka artiga la yiraahdo sida musiga dansiga farshaxanka in ay carruurtaasi loo helo si ay u bartaan haddii doonayaan xiiseynayaan oo kharashkeedana laga bixiyo lana raadiyo haddii ay doonayaan in loo raadiyo waxaa laga bixin karaa waalidka haddii uu waalid kaligiisa yahay oo ilmo haysta oo doonaya mataqaanaa ilmihii in mararka qaarkood uu ka helo fasax ma oran karo waalidku inuu ilmihiis fasax ka ahaado macnaha ma fiicna laakiin inuu macnaha helo waqti uu la hawlo kala qabsan karo in weekendiyada oo kale loo hayo ilmihiisa dad kale ay u xanaaneeyaan weekendiga si waalidku uu u helo waqti uu ku nasto ilmuhuna ay dhexgal dad kale iyo bulsho kale ay bartaan waa laga caawin karaa waxaa laga caawin karaa waalidku haddii tala bixin u baahan yahay tala bixintaas oo ah sida ilmaha xanaanadeeda haddii ay tahay mushkilo yar oo waalidka laftigooda kala haysata haddii ay tahay isfahan waa ilmaha iyo waalidka kala dhex haysata in hay'adaasi ay usoo dirto dad khubro ah oo tala bixin siisa sidii ay ku xalin lahaayeen dhibaatooyin ku jirta xanaanada marka caawimooyinka ay bixisa aad bay u badan yihiin waxaan hadda soo koobi kara maaha laakiin waxay intooda badan khusaysaa de markaanu ilmahaasi address garaynay waalidkaasi oo aan warbixin buuxda helo ilmihiina ka helo waalidkiina ka helo inaan xal la helo markaas aleela ilmahani waxaasi u baahan yihiin ay sheeganayaan waalidku waxaas u baahan yahay in laga caawiyo tusaale ahaan oo kale qoysaska soomaalida waxaad arkaysaa hooyo iyo aabba 6 carruur ama 7 carruur haysta oo kale dalkana koritaanka waalidku intuu dhaqaale ahaan korin karo carruur intaa badan way adag tahay waxaana suuragala in ilmihii inaanay activity ay u baahnayeen ama jimiciyadii ciyaarihi ay u baahnayeen inaanay helin in ilmaha iskuulka la dhiganayaan oo kale qof ka baahan had iyo goor uu yahay in qalabka hadday noqoto qalabkan ciyaaraha baaskiilada inaan reerka awoodi karin oo kale dabeetana in halkaa ilmihii la iskuulka la dhiganayay ama la jaarka ahaayo intii ilmo baahi ilmeed oo dhan haysta
uu eeganayo oo kale halkaa dabeetana ilmihii culays iyo buuxsamo uu halkaa conflict ka dhasho reeraha carruurta badan lahoo kale hay-addan badbaadada carruurtu wax xanaano oo gaara oo aan in looga soo qaybiyo oo dabeetana iyagu yidhaahdaan ilmihii baa dhibaata haystaa mooyaane xaggan kale wax ma ka eegaan duruuftan kale ay haysataan satriba waxaan ognahay waarid aabiyo hooyo haysta 4 ciyaala 5 ciyaala 6 ciyaala iyo dhaqaalaha adduunku maanta meeshu maray waan ognahay inaan aabiyo hooyo kabi karaa inay wax allaale wax reerkaasi u baahan yahay wada bixiyaan iyo 6 ciyaal oo kala doonaya mataqaanaa mid walba inuu sidiisa u helo wax asaga u gooniya kharash ahaan way adag tahay waa la soconaa taasi waa laga kabaa carruurta waxyaalaha saamku iriba activity-ga carruurtu ay diyaarka u tahay sida ashtiri haddii ay jiraan 6 ciyaalka uu ka mid yahay wiil ama gabar ama 4 ama 6 mid walba uu doonayo inuu activity asagoo gooniya u helo waa la ogyahayna waaridku inuu iska bixin karinin waaridku wuxuu caawimaad weydiisan karaa hay'adda badbaadada carruurta oo oran karo carruurtaasaan dhalay kharashkayguna waa intaas waxayna jecel yihiin ama jeclaan lahaayeen inay ka qayb galaan activity-yada macnaha waxyaalaha kala duwan oo carruurtu ay ka qayb galaan waa laga bixiyaa marka carruurta kharashka meelaha ay doonayaan qalabka ay u baahan yihiin haddii gabadhu ay tiraahdo waxaan dhiganayaa dansi baan aadaya dansi uu yahay la doonaya qalab u gooniya kaba u gooniya waa loo gadayaa waa laga bixinayaa sababta dansiga ay aadaysaa u baahan qalabka noocaas haddii wiilku yiraahdo waxaan aadayaa football baan aadayaa ama gabadhu tiraahdo waa laga bixinayaa footballka uu aadayo qalabka uu footballkaasi u baahan yahayna waa laga bixinayaa marka dee uu footballkii galo footballkii uu dhiganayay uu la ogaado waxa uu baahan yahay kaba uu baahan yahay boorso uu baahan yahay jacket buu baahan yahay surwaal buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay qalabka difaaca lugta inay dhaawac gaaro ka difaaca waxyaalahaas oo dhan waa laga caawin karaa dhib maaha taasi laakiin waa in ilmihii iyo reerkii duruuftoodii warbixin buuxda laga haystaa waa inay la soo xiriiraan waa inay weydiistaan cid kusoo garaacaysa reer guri ma jirto oranaysa hey waxaan ognahay in 6 ciyaal leedihiin Soomaali baa tihiin ama Moroccan baa tihiin Pakistan baa tihiin carruurtiina ma kabi kartaan oo lacagtaan ma jirto dadku waa inay codsadaan waa inay sheegtaan duruuftooda liban halkan xog badan baa waraysigan ku bixisay maadaama la taliyo qoys tahay maxaad qoysaska Soomaaliyeed aad u jeedinaysaa ee tale aad siinaysaa aad halkan hadday noqoto macluumaad ka qarsoon oo wax tar u noqonaya iyo hadday noqoto wax iyaga waxa weeye waxyaabo khaladaad oo waxa weeye ku dhici lahaa ka hortagaya maxaad u soo jeedinaysaa taladan siin karo sida tiri Soomaali macnaha luqadan ku hadlaynana ay Soomaaliga tahay waxaan oranayaa dadku horta marka ugu horeysa inuu kalsooni helo oo isdejiyo oo baqdinta badan oo ku jirta uu sii daayo haddii waaridku carruurtiisa jecel yahay saan ognahayna waaridka intiisa badan carruurtooda waa jecel yihiin in ay jacaylkooda markaas aysan baqdin ku bedelinin ay carruurtooda la baqayaan jacaylkooda kaliya ay haystaan qof walba oo bini'aadan ah oo caqli leh oo sida dadka baanabaanada u shaqeeya waa dad wax bartay ah oo caqli leh way arkayaan hooyadan iyo aabahani jacaylka carruurtooda u qabaan maadaama marka haddii waaridkii uusan carruurtiisa nabcayn oo uu jecel yahay waxaa ku xigaysa haddii daruuf yari meesha ka jirto sida iskoolka loola socdo ah ama sida xanaanada carruurta loola socdo ah ama sida hadalka ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya carruurta iyo waaridka loo hagaajiyo ah waa laga caawinayaa waa inay sheegtaan oo aysan ka baqin taasi inay taasi kuma keenayso in carruurtooda looga qaado ilaa intaysan sharciga waddanka u yaala aysan jabinaynin sharciyada waddanka u yaala oo aysan jabin waxaa ka mid ah inaysan carruurta dilanin sideeda macnaha way canaanan karaan carruurtooda way loo ogol yahay inay mataqaanaa ay barbaariyaan oo ay u sheegaan wixii xun iyo wixii fiican laakiin inaysan dilanin inaysan gudniin aysan oola raadsan gabdhaha waa wax xun oo la ogyahay Soomaalidana waa ogtahay taas hadda waxaan kusoo celinaya maaha waa wax dhaawaca oo dhibaato ah hooyo kastoo Soomaaliyan waa ogtahay inuusan meesha mukhaadaraad uusan oolin
ama hooyaha ama aabaha haato waa wax xun oo haddaynu Soomaali nahay baa diinteenana u xun dhaqankeenana u xun dee waa looga cilmiyanna iyo wadankan joogno sharciyadiisaba inay u xun tahay macnaha in muqaadaraad caruur leh oo waarid leh ay cunaan dadkoo dhan baan oran lahaa in muqaadaraad cunin laakiin inay haddii waarid yihiin ay ka istaagaan waxaa ku xiga inay haddii ay maskaxiyan waxaan dadku xanuunsado taasi mid Soomaalida khusaysa maaha waa mid macnaha qof u khusaysa qofkii macnaha niyad ahaan u baahan in la caawiyo inuu saaciid soo baqin oo uu sheegto inuu mataqaana bilaadanku xanuunsado qofkii loo ka jabaayo qofkii madaxa ka xanuunsado waa isku mid oo qofkii uu xanuunsan yahay inuu ogaado inuu caafimaadayo oo caafimaad raadinayo caruurtiisana aan idin uga qaadayn sababtoo ah waa qofkii loo ka jabay ma jirto marka dadku inay kalsooni helaan oo ay wadanka ay joogaan kalsooni ku kalsoonaadaan in cid ku soo duulaan ku qaadaysaa sababtoo ah waa Soomaali bay yihiin ma jirto cid u haysa maanta dawlad u haysa kharash ama mataqaanaa caruur la iska qaadaa ma jirto caruurtu waxa weeye marka laga fursan waayaa la qaadaa kaliya oo aan marxalad kale lagu caawin karo aysan jirinin waa inay ogaadaan marka cid ku soo degdegaysa caruurtooda in iska qaadaan inaysan jirinin ugu dambeyntii su-aasheeda ugu dambaysaa waxa weeyaan talo kale iga raalo ka soo talada kale waxaan bixin karaa waxay tahay taadii weydiiso ah foster parenting see loo noqdaa dad badan waxaa jira maanta waalidiin oo Soomaaliya oo caruurtii waalidnimadoodii ka soo adkaaday ay caruurtooda ka weynaatay ama ay wali koritaan fiican marayaan iyagana waxaan oran lahaa inay ku fakaraan haddii ay haykraan ilmo kale oo Soomaaliya inay sheegtaan dhaqankeenu uu ahaan jiray in caruurta Soomaalida saan anigu waqtigan soo koray Soomaaliya ku soo koray waxaan ogahay in guri walba oo Soomaaliya oo magaalooyinka waaweyn oo Soomaalida maanta kamid ah Muqdisho Hargeysa iyo kuwii kale ku xigayba guri walba oo dhaqaale yar haystay inuu ku noolaa wiil ama gabar ama labo reerkaas wax la wadaaga si ay u hayaan ileen dadkay ka dhaqaale fiican yihiin si ay ilmahaas iskool u helaan waxbarasho u helaan taasi way ka duwan tahay mid hadda Norway taala oo ilmo kasta xuquuq uu leeyahay iskool inuu dhigto ama tuulaha deganaado ama magaalo caasimada deganaade laakiin waxaa jirta caruur Soomaaliya oo la dhici karto in waalidkoodu uusan hayn karin daruuf keentayba kuwa waxaa jira ayagu iskood u oran kara ma hayn karno oo Soomaaliya marka haduu jiro waalid Soomaaliya oo awooda inuu sheegto waxa badanaysa markaas xafiiska qaabilsan inuu haysto dad badan oo Soomaaliya oo uu la xiriiri karo marka uu ayo caruur Soomaaliya oo u baahan meel la geeyo marka fursadaas Soomaalida way banaan tahay waa u banaan tahay waa welcome being waliba waxa lagu soo dhaweynayaa saan qiyaasayo kaliya laba lagu soo dhaweynayaa sababta baahi baa jirta loo yahay oo la rabo in lagu buuxiyo caruurta dhaqankoodii afkoodii colorkoodii wax walba su-aasheeda ugu dambaysa liban waxa weeyaan war lehda Soomaalida wax tirada war lehda tala lehda meelo dalbayn joognaa isgaarsiintii iyo internetka casriga oo wax walba la ogaan karo xogo afkoodii hooyo ku qoran afka Soomaaliga ku qoran meelo ay ka heli karaan oo ama hay'ad u diyaarisay oo iyo dariiqyada u mari karaan iyada halkan ka sheegi kartaa walaani xuquuqdaas hadda hay'aduhu hadda anu waxaan ogahay kaliya xafiiskan u shaqeeyo oo degmo ka tirsan degmooyinka Oslo shanta waqti degmo kamid ah daano Soomaaliya waan joogaa oo qofkii Soomaaliya oo u baahan in warbixin la siiyay waa ku qasbanaa inaan warbixin siino saacad siino 2 saac siino waxa uu baahdo asagu aanu siino warbixin ku siino afka uu doonayo inaan ku siino Soomaaliya haduu yahay xaq baan u leenahay macnaha awoodna oo maanta ilaahay maadiis waa jirta xafiisyo badan oo Soomaaliya ka shaqeeysan waa jiraan oo badbaadada caruurta kamid ah turjumaad badan aan ogahay oo hay'adda say u shaqeysaa oo lagu turjumayo Soomaali ma jirto nasiib xumo laakiin way jiraan information yar oo xafiisyada qaarkood ay turjunteen oo xafiiska yaala internet ahaan ma hubo sida iyadoo Norway iyadoo Soomaaliya hay'adda badbaadada caruurta say u shaqeyso inay jirto oo Soomaali ah laakiin waxaan ogahay iyadoo Norway ah oo aad iyo aad u badan inay jirto marka dadku inuu san ka baqinin inuu tala raadsado tala waa heliyaa markaas daawadayaal barnaamijkii ku saabsanaa ama waraysigii ku saabsanaa hay'adda badbaadada caruurta ee Norway ee Barnefanka loo yaqaan
ee aanu waraysiga kala yeelanaynay liibaan xuseen calas halkaasaan kusoo koobaynaa haddii wixii su-aalo ah iyo haddii wixii cusub ee soo baxay aad doonaysaan inaanu soo weydiisaan waxa nagu soo diri karaysaan si aanu ugu gudbino liibaan oo aanu jawaab u raadino editor@ramasnews.com ama editor@ramasnews.com waraysigan waxa qaaday tiftiraha guud ee shabakada wararka ee Ramas News Cabdirasaaq Cismaan Fadal liibaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xogta waxtar kale ee aad halkan nagu siisay.